sidan horeba ula soconay ciidamada liyu booliska oo ka jawaabayay weeraradii ay al-shabaab ku soo qaadeen tuulooyinka Aato ee hoos yimaada degmada Beerey kana tirsan gobolka Afdheer ee Soomaalida Itoobiya ayaa wali sii waday toddobaadkanba howlgaladii ay kula jireen ururka al-shabaab waxayna kula wareegeen markii u dambeysay magaalada Garasweyne oo ay haatanba ku sugan yihiin ciidamada liyu boolisku meeshan horta aan ku suganahay waa Garasweyne waa tuulaha Garasweyne oo hadda ka hor ay deganayeen nimankii al-shabaab deganayeen dhacdaha calankan hadda aad aragtana waa koodi anagoo markaa ka soo kaga nimid anagoo ah ciidanka dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa marka maanta waxaan ku suganahay Garasweyne oo kaga nimid dhankan waxa weeyaan xuduuda ayagoo hadda ka hor waxa weeyaan soo weeraray gudaha Itoobiya qabla kamid aata oo waxa weey gudaha Itoobiya soo galay ayaa darbaha xun waxaan ka soo dhafanay Lehelow marka waxaan ka soo qabsanay Lehelow sariirad diugal shimbiraale la galay iyo rab dhuure maantana aan ku suganahay waxa weeyaan Garasweyne ayaa maanta hadda waxaan dejinaa calankoodii hadda waxaan dejinaa waa calankoodii annagoo haddana saarina calankii dawladda Soomaaliya ciidamada liyu booliska oo sheegay in ay ku wareejinayaan maamulka gobolka Bakool iyo sidoo kale la taliyaha ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Sheekh Maxamed Laxos howlgaladan ayaa waxay ciidamada liyu boolisku kaga dileen al-shabaab 12 ajnabi ah haddaba guud ahaanba guulahan laxaad kale ay soo hooyeen ciidamada liyu boolisku ayaa waxay sidoo kalena kaga qabsadeen 7 xero saldhig iyo 10 magaalo oo ay al-shabaab ka talinaysay waxaa haddaba xusud mudan in ciidamada liyu boolisku ay dhammaanba goobihii al-shabaab ka talin jirtay ka dejiyeen calankoodii ka sudhnaa isla markaasina ay ku bedeleen calanka jamhuuriyadda dawladda Soomaaliya iyadoo askarigii saaraya calanka Soomaaliya isaguna uu laabta ku sitay calanka Itoobiya al-shabaab dejinayna calankii magaranaysa Soomaaliya aan saarayna ayada oo maamulka gobolka Bakool la magaranaysa aan hadda wada hadalay balansanahay oo ay nagu soo dhow yihiin leena wareegi doonaan kuna wareejin doonaan magaranaysa meesha war dejiye baalka dacdadan kadib ayaa waxa mahad celin ballaaran ka bixiyay goobtaasi la taliyaha ra'iisul wasaaraha oo isagu ku sugnaa halkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim wala taliyaha ra'iisul wasaaraha Maxamed Sheekh Maxamed Laxos idii weeriyada waxa uu gudoomiyaha Cabdi Rasaaq
halkaan waxaan kaga hadlaynaa howlgalka ballaaran ee ku diirsaday gobolka Boqol guud ahaan ka socda. waxaan balyo iyo taaniyad buuxa u diraynaa ciidamada New oo uu hogaaminayo General Cabdi Aadan iyo madaxda sare ee kilowga waxa weeye arrinta halkaan laga qabtay aan dadka gobolka Boqol ay in badan u baahi qabeen howlgallo badan oo annagu laftigaana waan qayb ka ahayn oo gobolka Boqol ka jirayna ma dhicin hadda ka hor in dhulkaan jafka ah la yimaado sida la galay oo baysaskoodii ah Moorgaabay Garasweyne iyo dhulka hawdka ee beeraha ee ku xiran ilaa Rabdhuure runtiina guulo lama ilaawaan ah yaa laga gaaray cadawga Al-Shabaab iyo nabadiidka oo ay iskaashanayaan runtiina halkaan ka waday godoomin shacabka Soomaaliyeed noloshoodii hadday xaq caafimaad tahay iyo hadday xaq dawo tahay iyo hadday xaq jiritaan tahayba lagu adoonsan jiray adoonsi waliba naxariis daran ayuu ahaa wixii meesha ka jiray ciidamadii meesha ka qaaday ee gacan lagu siiyay inaan halkaan nimaano oo aan ka howlgalno oo aan maanta la galay fadhino waxa weeye waxaan la hilmaami karin weeye gobolka Boqol waxayna hilmaami karin weeye arrintaa waxa suurta galiyay madaxweynaha dowladda deegaanka Cabdi Cumar aragti fog leh runtiina iftiin u soo baxay ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba geeska Afrika waxaan leenahay Allaha daayo magaciisana Allaha raajiyo isaga ayaa hawshaale dhibaatadii faraha badnayd waxa kale oo arrinta iyada ah saldhig u ah dowladda federaalka Itoobiya oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto hil iyo hool la garab taagnay weligoodna naga caajisin ilaa Xamar ilaa Baydhabo ilaa Boqol ilaa Gado meel walba ku dhibanaya waxayna u dhimanayaan inay ummadda Soomaaliyeed marcagaha isku taagto qof kasta oo damiir wadaniyeed leh oo Soomaali ah abaalka dowladda Itoobiya ma hilmaami doono qalbiga annagana kayd buu ku noqonayaa waxaan u nahay garab waxaan leenahay guuleysta geesta kale ciidamada liyu booliska oo shacabka kula hadlayay goobahaasi ayaa waxay u sheegeen dhibaatada argagixisnimo ee ay Al-Shabaab leedahay adoomadiisana aqoonne cadawga bini'aadanka ah weeyaan magaranaysaa ilaahay abid joog walba aan aragnay ya dadka burburayay oo meelno waa cadawga bini'aadanka adawga ahaan adawga dadka dhajan gaal ba cadow ku yihiin islaam ba cadow ku yihiin midna lama oran karo cadawga bini'aadanka weeyaan adawga bini'aadanka meelin rogan meelin walkalma in rogan idinkuna magaranaysaa dadka idinka maqan iyo dadka carare ay waxa xun u sheegan u wada yeedho isin ma isnaha dadka isin nifanina horaagi bayliye eela wax ku finin weera isin bilan shacabeytan walba ma nifadayo dad Soomaaliyeed baa tiin dad Soomaaliyeed isin dad Soomaaliyeed inaan dad Soomaaliyeed anu wanaagino bana socnay isin wanaagina injeenin aan maamulkii iyo dawladda dhulka ahaydna way iman soo iman dadki dawladda hay dhulka lahay wadanka dhisiyaan jeedo jahdaro hay way imanayaan dhaayay kooyaan milan kooyaan caawa inoo imanayaan oo ka kooyaan imkana wixii ka maqan meelaha jooga u yeedho isin walweelaasan walaag meelan isin jarad ay weeraasan sidaas weeyaan iyo dhaqanka aadmiga dararuucan sidaasay Al-Shabaab tawmariyaan dararuucan sidaasay Al-Shabaab tawmariyaan nabugahaaga qorjoof kalaye seelkaaga suntaaye oryaantaada naamahali isaha ka dhaadhacaye sidii dhurwaa dhowr qaday ilkahaaga dhaadhe sidii dhurwaa dhowr qaday ilkahaaga dhaadhe Al-Shabaab tahawdkiya haddaa tahay maskaxda guriheen bareen baan ku mariyaa kumarilaha bareen baan ku mariyaa kumarilaha bareen baan ku mariyaa Al-Shabaab ay ku daaye Al-Shabaab ay madasho makada Al-Shabaab ay madasho makada Al-Shabaab ay madasho makada Al-Shabaab ay madasho makada